بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. waxaan ku jirnay tilmaamaha ducaada fi barnaamijkeena taxanaha ahaa dhaxalka nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaan xalqadan ka hor isugu hadalnay rifqiga ama dadka in loo dhimriyo iyo inay tahay waajib sifaadka ducaadana ay kamid tahay ama daaciga. haddii ay sidaas tahay marka waxaan rabnaa halkan inaan mawduucaas farac ka aan daba dhigno ah dhibaatooyinka cunfiga ama adeega uu leeyahay dacwada islaamka. dhibaatooyinka uu leeyahay cunfigu ama adeega uu leeyahay dacwada waa dhibaato aan qarsooneyn, waana midda ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga digay aayaddii ugu dambeysay ee suuratu al-cimraan, fabima raxmatin min allah aayatu shura fabima raxmatin min allah linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlika. marka ilaahay uu leeyahay nabigiisa maxamed sal allahu alayh wasalam haddaad ahaan lehed mid adag oo kariwey ah oo qallafsan oo dabeecad adag waa laga carari lahay. macnaheedu waa maxay? bayna qowseyn jumladaas geli waa laga carari lahay. waxaa weeyaan macnaheedu qof kasta ee dacwada cunfi iyo shiddo iyo dhibaato dadka ku wajaha ee dacwada rifqiga iyo naxariista ka qaada waa laga cararayaa. haddii lala joogo xataa cabsiyaa lagula joogayaa, maalintii jaanis laga helna waa laga tegayaa. walidaalika cunfigaas iyo adeegaas nabigu sal allahu alayh wasalamna uu naga reebay, aayadaha qur-aankana si cad ay u reebayaan. muslimiinta dhibaato badan oo iyu gaarsiiyey. waa maxay dhibaatada uu gaarsiiyey? waxaa ka mid ahaa saddexdii khaliif ee abubakr sidiiq radi allahu canhu khaliifatu rasuulillahi ku xigay, khulafaa raashidiin alarbaca saddexdii kamid aheed oo kaleeto ka dambeeyey cunfigaasaa lagu dilay, adeegaasaa lagu dilay. sayid cumar markii laga reebay, sayid cumar waxaa dileen majuus oo nin maaragtay gaal ah laakiin xadaad ahaayo birtumo ahay oo dadka birta u hagaajiye ahay ayay soo kireysteen. ninkaasaa wuxuu usoo galayba oo islaamka si beenbeena usoo dhex galay inuu u dilo sayid cumar khaliifatulmuslimiin, inuu dilo amiirulmuminiin cumar radi allahu canhu keliya meesha u joogayba. arrintiisna waa gutay, isagana dawaaltii la dilo la qisaasay. markii laga reebo laakiin sayid cuthmaan ibnu cafaan dilnuureyn iyo sayid cali ibn abi aalib radi allahu canhuma jamiican labadaba dad diin sheeganaayo oo cadaalad raadinaayo oo waxbaan saxaynaa leh oo diin sheeganaya dileen labadaba. bal dhibaatada islaamka gaarsiiyeen fiiri. labadii khaliif labadii amiirulmuminiin ahaa labada ugu fadliga badan bacda abubakar iyo cumar markii laga soo tago ummadda ugu fadli badnaa, ummatu maxamed oo dhan ugu fadli badnaa bikulli quruuniha, ayay labadaba magac diinku sheegay ku dileen. diinna ma ahayn, ahwaadooday u dileen. marka halkaasu cunfiga ka bilowdayba fiiri. nimankaasu xaq baad sheegaysiin bay islahaayeen, xaqad ku taagantihiin. ninkii sayid cali dilay radi allahu canhu waxaa la yidhi markii la qisaasayo xasan ibnu cali oo qisaaska ile sayid cali intuu noolayba wuxuu yidhi ninkaas haddaan noolaado aniga iyo isagaa xaalaynuu yidhi, ama waa cafina ama wixii u gaarsiiyo kalaan gaarsiina. haddaan dhintou yidhi ee aad hubsatiin ka bacdi hal la qisaaso ayuu yidhi bes. marka siday noqotay markii sayidka nafta ay deysay sayid cali radi allahu canhu waa la hubiyey inuu dhintay oo geeriyooday ayaa markii waatii la qabtay waa la qisaasay, waa la soo qabtay, waa la qisaasay. marka ninkaas isaga ah markii la dilaayey wuxuu codsaday baa la yidhi in la jarjaro oo hoos laga soo bilaabo qoorta laga goyn, lugaha iga soo jaro yidhi halkaas marka dambe madaxa ugu dambeeya. maxaa jiraa la yidhi? wuxuu yidhi xamdigii ilaahay iyo shukrin baan ku jiraa buu yidhi. marka tasbiixdii iyo xamdigii aan dilay cadowga ilaahay ugu weynaayo adduunyada jooga aan dhaafsiiyey muslimiinta ayaan ku tasbiixsanaya. marka carabkayga ma rabo yidhi inuu hore ka qalale dhunta aan layga goynin ee gadaal layga soo bilaabo. fiiri meesha cunfigiisa uu joogo, meesha uu joogo yani inxiraafkiisu iyo diin la-aantiisu weli waa isla sii quman yahay isagoo jiryadaas sameeyey. marka cunfigu sidiisaba laa yuwalidu ilaa sharan, waxaan shar ahayn ma keenaba. taas markii laga soo tago cunfigii maxaa ka dhashay? ninkaasu khawaarijtu kamid ahay, khawaarija ka dhalatay. khawaarij dhibaato badan bay muslimiinta gaarsiiyeen. inkastoo la yihahdo kuwa maanta jooga iyo kuwii hore ayaa shar yaraay, kuwa maanta jooga aad ay u dhib badan yihiin, way ka daran yihiin kuwii hore, laakiin kulligoodba waa shar. maxaa yeelay dad muslimiinay gaalaysiinayaan, dabadeedna waa laynayaan, dadki bay laynayaan, muslimiintii dhiigooday banaysteen. marka arrintaasu marka muslimiinta dhibaato badan bay gaarsiisay. ilaa culamaau taarikh alislaami ay yihaahiin lowla alkhawaarij la futixa alcaalamu kulluh. haddaan khawaarijo aysan jiri lahayn adduunka o dhan ba waa furan lahayen, muslimiinta waa furan lahaayeen. laakiin xarbi daakhiliya oon dhammaanayn bay geliyeen oo cunfi oo maanta o dhan lagu mashquulsan yahay aljabha daakhiliya. waxaan la yidhahdaa
الجبهة الداخلية دائما وكخطر بنتهاي جبهة دبد لقى سو ويرايو لأنه من دبد لقى سو ويرايو يعني ما جيدوا ما لهذا كنوش اللي ما جيدان دبد يكجوا عند دائرة ده مركب ولا سكعلي كرا دفاع ذق بالهرني كرا ولا مارين كرا لكن على شيء هذا كجرا وما أنت ولا أديك صور بكايلاي وماشي كنوش وجوده أو كقاضي وبمب يدل كل قاضي ما أنت ولا ونسيب دروا مركب واجي هراء عنفقة وكابنا مركب لأنه وحنا اللي سكول هنا مجرين قف أي خوارج أي روان إني دلان سيد علي يقول له أنتان يدل جرين ولما دتك يدل جرين وعيانتها وكابناين لكن كوا ما أنت جروا أركتي القتل بالجملة يعني بقول غفوض أما لو بقول غفوض أما سيد بقول غفوض أما سيد هذا على مرت الزابط على كل تشتان ليه بقول غفوض هل قبل يقول لنا يابا خلاص كانوا إنه قيام الدعوة كلها تذكر إن ما سفر لجمر هاي كلها وأنا سيب دره مركب عنف ما أنت جرا يعني كو تاست خوارج تبي هاد وحال أيضا مسلمين ودوا يسدوا بدر على الحاد كذا يقال هذا أو أي يوروب أي مارت أنت المغرب العربي فرتين وجبل دارق أي دافين أي سي سعدان أي جوده دجال وفرين مركب ما ودك الدولة إني مارت لبض دجال إسرائيل جوده يدي بدبا كي جوده يكون مشغول شيء عبد الملك بن مروان حلي جيسي كي يدي بدي مركب على مشغولي كي يدي من التمزق على كل عاي دولة بني أمية مركب ما يشكب حدنا عباسينتي ولي سيدي سيجرين خوارجته مركز بني أمية عبد الرحمن داخل واتو هذا يوروب أو دولة أفر بغلاص نص عتي هذا نواتو كودي أو مارتي نمك أي أمويين تحقق أيوكو أساسي مركز تفرارق قاس مسلمين تكلجوجا كل حي وحقول سببها جبهة الداخلية مارتي وحا إلهي ما ديسة تربية المسلمين تو حل جهر آدي وفعلات قبيلة الله بدك على من قبيلة دي وقت النبي قال الدين صلى الله عليه وسلم يا خلفاء الراشدين قبائل كعربات دينتي وضقاتين قبيلة دي حنون كذا يقين الجاهلية دي ما ليس كذا سومالي ده أنا كلامها سومالي ده قبيلة ده من أي مسلمين من أي ما بكتر عن واو المسلمين سومالي ده هذين قبيلة دي اللي باتين يجيهم قلبي قد كمان بحضه مسلمين لكن عقيدة أهم بالله قد دقين النبي كذا صلى الله عليه وسلم لكن عرف اللي باتون محكت مد مقعد دين تاك وكلا كو أبو رمان أو قبيل شددي متقدر الله يمد مركزي مسلمين يكون على كيان على كل حال هذا مركي مسلمين تدنا أي عز أي جارين أو يهرمر سمايان وأفغانستان يقبضون مجاهدين تي وحوي هذا نواد وجودين أو حب اللوضي محنكو إلى تكفيرك بالوضي جهاد أفغانستان مريسي بابي ممكن مجاهدين تاها يقولون ولا لايه إن بدنا كم ولا لايه شيخ يقوي نايب لايه يعني ما كان كله هذا عزام عبد الله عزام وتيلا قرحي أحمد شاه مسعود وتيلا قرحي واسك السعودية مركب دم وحين نقدر مركب فرصد وحين نقدر عدوجة فرقلين إن أفغانستان لسه فرقليه طالبان هذا الدجال انتي أو إن ممكن هذا مريكا وقوة هذا الكل جرينا ماشك بحان سي مارتي دولة أفغانستان هي طالبان تلوم دولة إسلامية وطالبان مدحونا كسعودة هو قامنا آيسيس هذا نكواس ولا تاد دجال ميس وطالبان تنقر حنيس أفغانستان دولة نقر حنيس لأنه مروا بعنف وجانس مسلمين أي مسلمين تا سيد جانس كور مسلمين تا وجود إذا هذنا وادبايان وكل بايان وحوي هذا ماشي اللي يرادو سوريا هذا سنجر لهين داعش وحقوا لي سلهاي مسلمين تي دولده كسور جدا بعثك او ماشي كجرت او قشنك او روشك ودعمناي محايل السنه دي او دن ولا 20 مليون دور 20 مليون اهايان بقول لك بس سقاشه وسنه واي هوكي ودا قاتن كنت جبد عبورنت جبدي مركل لما دايبا ولدي محانكو اراده داعش هذي ام با لو اديكسدي يشقينايا لما يقانو بشار الاسد ما بقى عيدن كيسي waxay dhulkii ay qabsadeen dadka sunnada ahaay magaalo uga la wareegeen si u leeynayeen waad ogeed markii dambana ayagana Mareykan ay yimid iyo galbeed waatii la qabto ilaa hadda maarta 100 ka badan inta laga qabto raggoodi 50 ka badan xiran markii dambe Mareykanka oo nadba ku hay dhul kurdiga lagu hubeeyay waa la hareeriyay waa la qabtay marka laakiin ayaguna maxay halkeeyeen waxay burburiyeen Suuriya oo dhan iyo dadkii jihaadka waday oo Suuriya inay qabsadaan rabay oo diinta watay oo ay muctadilka ay baabiyeen ibarka dhigeen إلى إيران ذاتك قحي وحنا قحشي وح أقدرن لمن كان قرحيد الأرداء أو آيسيس أو ماشي الجوجا مركوا دبعتوها مركا أنا الصومالي وأوجد دبعتها ما أنت خجرت هذه الصومالي دي إن شاء الله إذا محكمة إسلامية أي تلسمين وضلك قال كعية إلى ماشي اللي هذا دوبلي أيوة أي معمولان أو منكرات كل زولية أو يعني مارت الشريعة دي ظاهر كذا مغال كذا أو مغضو دولدي مدحون عبد الله يوسف أو بيربي جوكت أو إذا بقى أنتظر بلا لا حول الله ولا قوة واحتفر عن لاين يروح ميزانية ده
ayay ahaaday in inta baydhabo loogu tago la yidhaha kaalay odag la soo wado qasriga la keeno waa kula talinay raggi markaas maxkamadaha iyo muqaamada hogaaminayo waxaanuna walaalayaal jaaniskan ilaahay cizigiisa buu keenay diintiisa buu u gargaaray maanta amnigii koonfur soomaaliya iyo bartamaha soomaaliya 100% amni ayaa ka jira koofiyadii dowladnimada kaliya ka maqan cabdullaahi waa oday 80 jira waan iska xanuunsan yahayba maanta doo meesha beri waqtigiisu dhamaado waa iska tagaa idinkaa meesha dhexlaysiin yaan amnigaas la baabi'inayna ilaahay uga baqa amnigaas ilaahay baa la yimid nasriga ilaahay baa la yimid xoog kula ma imaan idinke waardiyeeya aawa yaa cagta u dhigaya marka waa taad ogeeday waa baydhawaan xoreynayna sababan ku dukanayna intaan ka boodayna ilaa White House kan tagayna waa qabanayna adduunka ma qabanayna gab fursada la dhigtay marka John Bolton iyo taad ogeeday ninka markaas u joogay Mareykanka u joogay golaha amniga mashruuci oo tamriiriyo ahaa in Muqdisho la qabto oo golaha amnigu markay carabtu isku dayeen in la baajiyo in Ethiopia soo gelin xamar asaga dardaray oo yiri nimanka yiri Addis Ababa ku dukanayna ilaa White House kan tagayna ma joojinayno yiri oo cirka iyo dhulka badda ka soo galaano yiri mujaahidiinta adduunka oo afayeenkooda iclaaniyay waa inaan qabanaa yiri marka yani annaga marka isugu sababa annagii baa wax sameeynaa nimankii maartay yani annaga dalkeena weerar ku ahay baan albaabada u furaynaa ilaa hadda dawladda jirta Sheekh Shariif oo shalay maxkamadda hogaaminaya markuu madaxweyne noqday waxa dhulka la dhigi waayay nimankii maxaan ku iraadaa ahay al-qaacida ka socdo al-shabaab iyo xisbul islaam oo xasdaahir hogaaminaya iyo nimankan oo Ahmed maartay oo hogaaminaya ninkii maartay la dilay ahay Ahmed Cabdi Godane iyo Ibrahim Afqaan oo asagoo u dilayba sagaa dilayba kaas ka takhalus waxaa laga waaday culimadii Sheekh Maxamuud Ciise Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax Allah naxariistay oo markii dambe iyagu ay dileen Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyagu ay dileen Sheekh Maxamed Cabdi Umal culimadii waaweynad oo dhan inta yimideenay war Ilaahay ka baqa ninkaan aan isu kiingeyno dastuur islaamiyana hal qoro ciidamada maxaakimta iyo muqaawamadana ciidan qaran laga dhigo ha lagu daro maamulada deegaanada aad joogtiina maamul dawladaha lagu baahiyo xabadana dhiga dalka hala badbaadiye nag waaba murtada la yiri jawaabta ogeedeen Shariif murtad Usaama noo soo iftooday beereen waa tuu iftooday marka cunfigaas marka aan dhamaanin iyo ujeedada la'aanta ah oo yani afkaar qaldan ku dhisan oo dadka inta la gaalaysiiyay la yiraahdo marka gaalada hala zuuliyo bal hadda Soomaaliya waa murtadiin inta la yiraahdo maamul goboleed waa murtadiin dawladda dhexe waa murtadiin baarlamaanku waa gaalo ciidamada dawladda waa gaalo waa murtadiin dawladda islaamiga si loo dhiso waa in kulli la laayaa intaas waa mashruucoodu goorma marka Soomaaliya dhulkan inta la wada laayo dawladda islaamka ku dhisaa waa khiyaal wahmi waa waxaan weligeed dhicin marka muhiimaddu marka maxay tahay muhiimaddu waxa waaye ajnabigaas in jaanis loo sameeyo ajnabigu inay weligood ay dalkan iska maamushaan dawlad daciifa inay ka jirto wixii laba loo yeeriyo inay mashruuc ka dhigtaan ajnabigu inay amisoomtaan iyo waxaan ay dhulkan ku qaraabtaan mashruucan ay u waardiyeen nimankan qarax isku soo xiraay maalin walba meelaha la taagtaagan in dadka shacabka ay argixiyaan marka waa mashruuc gaaladii uun loogu khidmeynayo marka muslimiintana ay ku kadeedan tahay idan cunfigaan wax uu keenayo aan ahayn ilaahay wuxuu leeyahay dacwada markuu ka hadlaayay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قالدي حتى وجادلهم هم توا قالدي ولا الضاد بالتي هي أحسن مد أقوى ناكسن قال هذا ليس ولا له الدين أنا وأنا هيستنى إسلام كواسداني بل واحد يستنى الشيك مجادلة حتى قنعوي حتى دلنا ميسد عين ميسد جانس كلا هذا قادنا يسا مركلة قف كلا الله صدر إياه واحد عكرت أخيرا إنه إسلام هذه قرمة هذه ما أكتة وقت ما أكتة هذه قف كانوا ودين تسوق لها أتقنعين كرتين marka walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynaa jabtar aan qaybtaan cunfigan iyo adeegan iyo dilkan iyo qorgoyntan iyo qaraxyadan iyo dhibaatadan wax ka faa'iidayo gaala ahayn ma jirto muslimiin weligeed kama faa'iidin haddana ka faa'iidi maayaan marka ilaahay inta ka baqaan nimankan dhalinyarada ah oo shidada ah diinta waa yaqaaniin ilaa maalinta ugu horeysa loo sheegay culimadaas waaweyn oo aqdaabtan sheegay oo dacwada ragga ugu waaweynay ahaa Axmed Cabdi Godane inta u tagay Axmed oo ilaahay ka baq nusuusta waad ogtahay dadkan halaynin dalkan fidnaha gelinin ajnabina how loogin xataa waxay siiyeen jadwaleysiin Sheekh Shariif ka dhameeyeen 4 bilood gudahood in ciidamada maxaakimta ciidankan la mideynaayo nimankan la bixinayo ciidan qarna amniga uu la wareegayo dalka xuduudaha la soo xiraayo wadiidi maanta asagana wax ma haayo dawladda Soomaaliya waa daciifiyay dalkan dhibaato u geliyay gaaladii waagaas uu diidayo Ugandeska ay 4 kun ay ahaayeen maanta 20 kun ay dhigeen ajnabiga jooga dalka inta la ogayo diiwaan gashan 20 intaan la ogeyn waa 20 ka badan tahay صدن دولة عيد ما كسرت جوجا عيد ودي وانك شيء ماله ومال بيلا لأنه مشروعا وأرجع حصل الدركة هو ما كانوا يستميستين قال هذا يا أفرع البابك وإذا ددي مشروع وذنا ما أوجا إني قالوا شغينا يانو يسدد بنا باب أفرين وأنا ما اللي يرى مسلمين أنه شبابكم قال يسينا ولا هنا هذا إني إلهي كبقانو دينتو صار لابتانو عقل قادو الشقيو إني أوجادان إن مشروع الباب ودتي أو تجي أو قالوا إن كفى إذا ستي أي صاف جران oo yiraahdeen dawladda waa la heshiinayna hubka waa dhigaynaa
دستور كان وحي كقلدن دستور كانوا دولة الصومالية دستور إسلامي معهن يعني وفيعين يقولان لكن دستور كان من أنجا معهن بقول شروط وحي كيني كران الشباب كلفتوضو هم كوالي لكن دستور كإسلامي هلا بقول حرر بدنا كل حاجة رأي وحياة بدنا كبوحة هلا قصاروا صح قدها وفيعين هاي وهذا دينتي وحقوق رم قضباء وحكستو دينتي كل ما دبرها يعني لكن تسمع عن هذا معهن إنه وحول بقى بقول أيهين ولا صح كرا لكن ولا صح كرا قضباء إذا لو أديك سنة كل حاجة قالوا صح كرا مركا إذا مدان فرح بدن له أو قاركود جات كعونا يا أنا ميلها تاجن هذين اللي يردان شبابك أو تبرن أو ذا أو أن يجوا مرت أن بلودها لا ينادي صار حقلان إذا نظيفة إنه صبح الهاي وإنه صار تبرتوا جيسيالا ويرنتي وكو أمانية جيسين ماذا لكن ماشي اللي بين جيس كون نقدان من جوجان ضد المسلمين إن جيس نقدان إلهيان ما معناه هذا وهي هذا إن عدو جيس نقدان إلى يحول عزة تعلمون عزة على أذلة تعلمون عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين قال مسلمين تساسوي بعد مؤمنين نقول لهم أوجر حسين قال لنا وكو أذقيهم لكن هذا عكس واي هذا قال لنا يقول ما قال ما بأركاه يعني مسلمين تم بيبا برتكوها يعني كل بيهن مركا على كل حال وحن كسوق بيننا إلهي أنت اللي قبض وحكى له قفة إيد الله إنه ممكن أقويهم واي جامعة هيدي لهاين قضاة نقول لهاين للوش مقادنا هاين هذا سوف الإنسان محكمة ده سان قياسنا ده وايس بدل كران لكن كل وحن قياسنا فكر كذا كيستاو إني وحيواس إلى لنا يورع يكون حجران وسيدنا قياسنا والله أعلم يقول سيد بن آدم ويلع كرتين وحكى لي سين مركا سكست بها هاته وحافي عن ونقول يرينا ولا لها الشباب حركة الشباب المجاهدين ولا لا وحن لا ومسلمين أنهم قال سنين سيد علي مركا خوارج ما قالها من الكفر فروا أيوري قال لي بكع الرين سيون قال سنين أنا بيقول مركا أنه هذا حالنا يقول افتضل من الكفر فروا قال لي كع الرين أنه ما قال سنين دتكاس مسلمين تا ولا لهنا لكن انحراف وكل عاي تكسون نقدان قندقان كصبحان ضل كان وحكوا جاميانو أمنجيس وحكوا سجانو شرعيس وحكوا جانو ومدن دين جهلك كسارانو حدودها ما أنت بيلاد نقدنا إن سحر إنه إيجا بيلك دقة إلهي أنتوا جبغان وحكش قيانو صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.